aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa wasaaradda howlaha guud iyo guriyiinta iyo horumarinta dalka dhulka inay soo qabanqaabisay mashruucan ama barashakan lagu diiwaan gelinayo hantida guud ee qaranka. waxaan dareemayaa wasaaraddu xaaladda ay ku shaqaysa oo dhaqaale ahaan aad iyo aada u kooban oo danta dalkeenu tidhi. waxaana aada u dareemayaa aqoonyahanka intaa leeg ee injineerada ah in aanay haynin oo aanay dowladdu dhaqaalihii ku filan ay ku shaqayn lahaayeen inaanay itaalkeeda haynin. waxaan uga mahadnaqayaa injineerada iyo aqoonyahanada iyo shaqaalaha hoose ka shaqeeya wasaaradaha oo dhan xukuumadda iyo gaar ahaan tan howlaha guudaha howl badan haysa inay 100% waxa ay ku shaqeynayaan voluntary ee aanay nin aqoonyahana oo jaamiciya iyo standard dhaqaalo oo lagu xisaabiyo dowladda aanu jirin. wadannimada iyo tabarucnimada aad sameynaysaana waa idinka mahadnaqaynaa. waayo dee fikirkeenu waxa weeye haddii inaga dhaqaale nagu yaraaday waa inuu dalka u dhisnaa carruurteena suu dhaqaale ugu hagaago. dal waloo hore u marayba dad buu la kulmay dalku markuu dhismaayey oo dhibtiisa qaatay deetana waxaa u aayay dadkii ka dambeeyey. dalalka maanta lama jeertaa ka mid a dee maraykankana xoogga weyn ingiriisku muu ahaa mustacmalad yar sidii aanu isticmaradu ahayn oo kale deetana iyagoon waxba haynin oo cashuur yaroo shaaha isku dilay ay dowladnimo qaateen maantana halkaasay mareen. china ka mid a oo dad badan sooba gaadhay dee china aada loogu baktiyayo shalay ahayd 30 sano ka hor. dalal kale oo tusaalaha ka mid a ethoobiya agteena ka mid oo 20 sannadood ee iyagana EBRDB qabsatay inaguna aynu xoroonay mar wada xoroonay. maanta dhaqaaladu kuwa Afrika ugu dheereeyay weeyi qof lagu yaqaan markuu Ethiopia tago markii 20 sano ka hor soo halku dhaqaaladu marayay guryahay galayeen xafiisyada ku shaqeynayeen dareyskooda. marka kalsoonida aad aaminta dalka inaad u shaqeyso waa la qurxin karaa foorxumada maanta taagan iyo dhaqaale darrada. taa waa ka mahadnaqayaa inaynu qaadano ra'yiga aanu inagu dalka dhisno ubadkeenu waa iska odhis. marka waa ka mahadnaqayaa dhaqaalaha kooban ku shaqeynaysaan wixii suurtagalana waa in la garab galayna hawshaa qabanaysaan waa hantidii qaranka. qofka dhistanaya guri yar inta doonaya la kado 30 mitir 50 mitir 100 mitir mulkiyad buu samaystaa. dee inaga waxaan waajiba qaranku wuxuu leeyahay inuu mulkiyad sameeyo. waa aragnimada waxayna tustay marar badan in loo haysto oo la yidhaahdo waxa dowladdu waa bilaash waa wax dowladda cidi kama damqato ama lama ilaaliyo. waxaanu diiwaanka loogu horreeyey gaadiidka oo ilaa maanta sidii la doonayo soo xirayntiisii iyo raadintiisii aanay u dhammayn. laakiin waxaynu haynaa wixii gaadiid qarankani lahaa ilaa inta dalka dib loo soo galay tiradoodii qacaadtii halku dambeysay xitaa waa ogaag raymka kii xitaa qacaadi saalo kii meel yaalana waa la soo qaadaya waa la raadinaya. laakiin waxaynu haynaa qaranku imsu gaadiid ah taasaa la xasiliyey. sidee loo maamulaya sidee loo wanaajinayana waa waddo kaloo loo socdo. waxaynu u baahannahay inaynu nala qaranku muxuu hanti leeyahy. horta qaranku dalka o dhan daysaa ka mas-uula dastuurkaa taadhig dowladdaa dalka ka mas-uula inay nidaamsaa u baahantahy intee la beerayaa intee la dhisayaa intee la kaydinayaa inaan hawshaa qaranka ee dhulka u gaadha wasaaradda loo abuuro oo dadkeenna imika ku cusub dadku laba waxuun iswaafaqayn bay naga doonayaan wax noo nidaami oo wax qurxi waxna anigaaloo amarka qaadan maayo oo buurtaa anigaale iyaan loo soo dhawaan oo kayntaa anigaalo waan gubayaa markaa tilaa ka doonaya waa lay wararaya dowladdii baa ay dhibaysaa waa laba aan islahayn moogti wanaag lagu naga doonaya dalkii in la wanaajiyo qorshii loo dhigayana weli ma ogola. sabab dadka imika nool da-da uu yahayba waa traumatized. dadka ilaa 40 sano u dambeeyey Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska afka hore dagaalay iyo dowladda iyo waxbaa soo jeejiray. marka dadku waa individual waa qoyskiiba hoosta dabad geliyay ma aaminsana wax la wada leeyahay. dadka waa intaa la baraa dalka waa la wada leeyahay sidana waa loo nidaaminaya. ra'yi kala jira dowladdu way ku cadaadinaysaa iska ilaali. imika nin baa degan meel waxba kuma hayo meel yar beer yar ku leeyahay ama xoolo ku raacaa waa la tegaya waxaa leeyahay meeshan waxaan doonayaan batrool ka qodo sidaa la isku dhufanaya qori buu soo qaadanaya. maxaa laga rabaa meesheeda war meeshan adna gaajaa kugu dishay kii ka horeyna gaajaa ku dishay inaan hore u marayno oo dhirtii hadday naga dhamaatay daaqi oo roobi waa inaan gudaheeda qodin wax ka soo harin doonaynaaye adna ma qodi kartaa aanu soo tagaan wada qodno. dhibaato weyn baa ka taagan waa maqashaa maalin kasta marka meelaha qaadaya ciidankeena
dadka hadla shaqaysanaysa adduunka ee dalka maal gelinaya dee xoolihiisa ku bixin maayo meel ciidan ku ilaalinayo oo maalba xabad loo soo baxayo ninkan kula dagaalamaya waxba iskama karanayo waa ka aqoon waa ka garasho ama nin kaloo meel fog jooga oo doonaya inuu si shaksiyan u faa'iido oo uu nin weyn u haysto ama uu dhegeysanayo ayaa le maya diid ilaa kaas wuxuu doonaya loo helo oo yana dee qalada marka waxaanu marnaa marxalad aad u adag oo dadkii dantoodii guud iyaga oo aan uga bareerayn aynaan isla fahmayn marka wax la qabanaya waxaan haysan wacyigelin badan iyo wax sheegid badan waana marxalad la mara cid walba way soo martaa marxaladda marka waxaan hawsha markaa gashaan dhibaatooyin badan baad ka hor imanaya oo xitaa aflagaada leh oo gacan qaad leh oo waxaydaan geyn leh oo buuq leh laakiin waxa weeye dulqaad iyo dadka inaan wacyigelin badan waxaan doonayna waa kaa waa waxaa cad aynu hawshaa qaban wasaarado badan baa ayaad isla shaqayn doontaan wasaaradda ugu culus la shaqaynaysaa waxay noqonaysaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda ugu ballaaran iyadaana haysa maamulka degmooyinka iyo gobollada gobolkii markaad ka baxdaanaad halka u tagtaa waxay u tegaysaan barasaabkii oo calanka u taagan dowladdu matala waxyaalaha marxalada marna iska hor imanaya waxaa kamid a barasaabkii calankaa u taagan haddana waxaad u gudbaysaa meeyar la doortay oo immunity leh oo sharcigu xeerkii saddexlaatanaad samaynay immunity buu leeyahay wuxuu leeyahay awood fulineed wuxuu leeyahay awood sharci dirsiyeed meeyarkina siday isula jaan qabsanayaan saddexdaa jaran jaree kala duwan dowladdii dhexe golay wasiiradu amarkii soo fulay barasaabkii ugu yimid haddana wuxuu yimid duqii magaalada iyo deegaankii oo la doortay intaasi inay si aan xanaf ahayn u wada shaqayso oo isla fahamtaa waxay u baahan tahay hogaamin iyo isfahm iyo usabir iyo waxsheeg dowladaha hooseenu dooranay decentralization dadka in bala la geeyo la daadajiyo adeegooda biyaha laydhka xashiishkoo laga guro nidaam magaalada bilicdooda la hagaajiyo waa waxaan u daadijirnay dowladaha hoose inay qabtaan dowladaha hoose way dadaalaan laakiin mararka qaarkood awoodda tamartoodiiyo waxaa kala badan dee waxa laga doonaya exportationka waxaa laga yaaba dhaqaalihii waxaa laga wada doonayay iskuuladii iskuuladii hoose inuu bixiyo dhaqaalahoodii inuu layrkii bixiyo inuu biyihii bixiyo inuu mskii caafimaadka bixiyo inuu wadooyinkii bixiyo inuu xashiishkii guro inuu boliiska waa kharash badan waxaa laga yaabaa meeshii uu maamulaya aanay kasoo wada bixin oona awoodda aban ahayn oo xaqiiqa marka misaanadooda la eego deetna canaan baa ku imanaysa iyo dhaliil inaguna baryaha dee dadku waxay ku wanaagsan dhaliisha ayaa aad iyo aad loo yaqaanaa mogti hadduu qofka saa wax toostoosi waxoogay gulwada iyo nagadaa iyo waxaan jecelahay xagga kuleylka inaynu xagga shan wax hoosido marka waxay isu tegaysaan heerarkaasaa maraysa marka dowladii hoose waxay ahayd fursad fiican iyo siyaasad fiican inaynu maamulka daadishino waanay dadaalay taagoodii laakiin waxaa ka xoog batay waxa laga doonayo hadday dhaliilo keenaanna waa bini aadmi iyo institution dhiso dhaliil wuu yeelanaya laakiin waxa mashkilada waxaa la sheegaa dhaliishooda intay qabtaan cidma sheegto meel walbana waa caynka idinka waa isu tegi doontaan waxaa iman doonaa dood badan baa dhex mari doonta waayo isagu wuxuu qabaa inuu dee deegaankii wixii maamulo dantii guud wuu ogol yahay laakiin hore laysuma weydiinte maanta ugu horeysa markaas waa wax tiraa baadi kugu raagtay iyo daadaa la moodaa inaad leedahay haddii neef baadi geelaag soo galo oo saddex dee-ood kuu dhalo oo kii lahaa sumadii ku garto dood baa ka dhacda wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka filaya inaad si wacan arrintaa uga wada shaqayn doontaan oo iskaashile iyo kuwa kaleba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa hawl bilo waa wanaagsan hawsha loo diray wasaaraddani waa hawl cusub awlana waxayd gaadiidka iyo guriyeynta iyo jidadka laakiin iminka waxaan uga saaray wasaaradda horumarinta dhulka waa wixii ugu weynaa dowladdu qabanaysay ee dastuurku siiyey dhulka waxaa looga jeedaa qaranka oo dhan bad iyo beriba in la qorsheeyo dhulka imika in baynu isticmaalaynaa sidaynu u isticmaalaynaa intee daaqa intee kayda intaynu macdan ka qodnaa intaynu xashiishka ku basrinaa intaynu jidad ka dhiganaa waa in la helaa dhulkiisaynu isticmaalayna haddii kale dee dhulka waynu baabiinayna
dowladaha baahan oo dhan dadka dhaqaalaya oo dhan dalkooda way baabiyaan dhirta way gubaan meel walba qashin bay ku daadiyaan wasaqooga ku badiyaan faqrigaas kale marka inagu faqriga waxaanu kaga tegaynaa aqoontiina aqoontana ku saxnaa haddii alla yidhahdo